asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan khiyaartana daawanaysa ay halkani waa barta youtube-kaynu ku leenahay facebook waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey kubadda cagta ee xanta suuqa kala iibsiga aroornimadan daawadayaal qodobo door ah oo kuwii ugu waaweynaa saaka ayaan ku dul istaagi doonaa dabcan warkayaga xigana saacado kadib ayuu soo geli doonaa qodobada aan haatan idin hayo waxaa ka mid ah liverpool bedelka sadio mane waxa ay ka ishaarteen horyaalka waddanka talyaaniga united marka laga yimaado frank de jong waxay ku dhow yihiin saxiixa xidiqa dhexe daafaca arsenal iyana weeryahan ayay ka dhex heleen horyaalka waddankaasi ingiriiska qodobada iyo kuwo kale ayaan daawadeel ku dul istaagi doonaa haddii ay tahay markii kugu horeysay fadlan sabscribe inoo saar rukumo janaalkan la sii wadaag asxaabtaada wararka ka imaanaya dalkaasi Spain ayaa haatan sheegaya in xidiga lagu magacaabo Asensio uu dareysan yahay in mustaqbalkiisa qalcadaasi Santiago Bernabeu uu soo dhamaaday waxa uu sheegay in qandaraaskiisa kaliya sanad uu ka harsan yahay islamarkaana la joogo waqtigii isbedelka uu sameyn lahaa umuurtan ayaa imaanaysa xilli la tilmaamayo in laacibka farsamadiisa loo bandhigay naadiga Manchester United kuwaasoo hore u baadigoobayay inay helaan saxiixa laacibka Asensio warbaahinta dalkaasi Spain ayuu haatan ka sheegay in la joogo waqtigii markaasi mustaqbalkiisa uu si weyn uga fikiri lahaa isla markaana uu go'aan gaari lahaa laacibkani ma aanu sheegin halka uu cagta saari doono laakiin ilwareedyo ayaa tilmaamaya in Real Madrid farsamadiisa ay u bandhigtay naadiga Manchester United wararka ka imaanaya kooxdaasi Arsenal ayaa sheegaya in ay u dhow yihiin inay ku guuleystaan saxiixa weeryaanka reer Brazil ee Jesus lagu magacaabo waxaana umuurtan imaanaysa kadib markii Lacazette uu go'aansaday inuu doortay ku laabashada kooxdiisii hore ee dalka Faransiiska ee Lyon laacibkani Jesus ayaa la tilmaamayaa in markaasi qanacsanaan uu ka haysto macalin Arteta Jesus ayaa dhankiisa waxa uu diyaar u yahay tijaabo cusub maadaama macalin Pep Guardiola inta badan mararka qaar uu ku leebo kursiga bedelka bixitaanka Lacazette ayaa haatan soo dedejinaysa in Arsenal ay sii laba jibaaraan dagaalka ay ugu jiraan inay helaan laacibkani Jesus kaas oo haatan ay u ballan qaadayaan inay siinayaan mushaar u dhigma midka uu ka qaato naadiga Manchester City 13 gool ayuu dheliyey 12 kalena caawiye ayuu ka ahaa kadib 41 kulan oo u saftay Manchester City xil ciyaareedka haatan dhammaaday inkastoo dhammaantood uu ku soo gelayay qaab bedela Somali Super Sport iyo wararkii ugu dambeeyey kubadda cagta ayaa daawanaysaan fadlan sii shargaray u gudbi asxaabtaada naadiga Liverpool ayaa isku day kama dambaysa qaadaysa oo ku aadan in Sadio Mane iyo Mohamed Salah ku qanciyaan inay sii joogaan qalcada Anfield markan dhanka lacagta ay doorbidayaan waxaana la leeyahay Liverpool waxay si dhaba uga fikirayaan in markaasi labada laacib ay u bandhigaan qaadashada mushaar gaaraya 400,000 oo lacagta giniga sterlinka labada laacib qandaraaskooda dhammaad ayuu ku dhow yahay waxaana warar badan ay tilmaamayaan in Sadio Mane heshiis shakhsiyadeed uu la sii gaaray naadigaasi Bayern Munich halka Mohamed Salahna uu ka fikirayo in qandaraaskiisa uu dhameysto qaab xur ahna uu uga tago haddii markaasi aanu dhicin heshiis ay isku waafaqaan la kooxdaasi Liverpool xidiga Manchester City oo ciyaara Alexander Zinchenko ayaa la tilmaamaya in xalayto afka uu furtay isla markaana uu shaaca ka qaaday in uu damcay in uu aado dalkiisa Ukraine isla markaana la dagaalamo ciidanka Ruushka ee ku duulay waddankaasi laacibkaasi ayaa sheegay in umuurtaasi si dirqi ay uga hor istaageen saaxiibadii iyo xubno ka tirsan familka
waxa uu sheegay in uu u dulqaadan layahay waxa ka dhacaya dalkiisa. wargeyska daily mail ee kasoo baxa dalka russia iyana umuurtaasi uu ka sheegay laacibkaasi. laacibkani ayaa la tilmaamaya in uu xusayo inuu ka xun yahay waxa dalkiisa uu ka dhacayo, isla markaana caalamka ugu baaqayo faragelin buuxda oo lagu sameeyo arrinta ruushka iyo russia. wargeyska the atlantic ee kasoo baxa dalkaasi ingiriiska ayaa tilmaamaya in laacibkaasi xitaa go-aankaasi uu ku wargeliyey maamulka manchester city. dad badan ayaa isweydiinaya sida ayuu ahaa falceliska cristiano ronaldo kadib markii la shaaciyey bixitaanka paul bogba ayaa ka tagay manchester united kadib 6 sano uu kooxdaasi uu joogay kadib markii 2016 uu ka yimid naadiga Juventus. wargeyska the atlantic ee kasoo baxa dalkaasi ingiriiska ayaa tilmaamaya in bogba ixtiraam weyn uu ka haysto dhanka cristiano ronaldo, xiriirkoodana uu aad u wacnaa, isla markaana ronaldo marar badan uu ku celiyey in xitaa uu jeclaa markii real madrid uu joogay in ay iska garab ciyaaraan. cristiano ronaldo ayaa la tilmaamaya in haatan uu laacibkaasi u diray farina isagoo u rajaynaya in guul uu la gaaro kooxda markaasi uu ku biiri doono, isla markaana uu xusay in manchester united ay tabi doonto laacibkani paul bogba ayaa la tilmaamaya in midkood uu aadi doono paris saint germain in naadigiisii hore ee Juventus. waryaanka qadaraaska cusub saxiixay ee Mbappe naadiga paris saint germain igara lahada Mbappe ayaa gaashaanka u daruuray warar saacadihii ugu dambeeyey soo baxayay kuwa oo tilmaamayay in maamulka uu ku wargeliyey in sifayn tarxiila laga dhex sameeyo gudaha paris saint germain, isla markaana magacyo dhowra kooxda uu bandhigo ku aadan in kooxda ay ka takhalusto. 14 ciyaartoy ayaa la tilmaamay oo uu ku jiro tababaraha iyo weliba agaasimaha kooxdaasi in markaasi laga takhaluso, laakiin laacibka umuurtaasi haatan waa uu beeniyey, waxaana xalayto bardiisa twitterka uu kusoo qoray calaamada fake ama been, taas oo la tilmaamayo inuu ula jeedo wararka tilmaamayo in markaasi uu faragelin ku sameynayo go'aaminta mustaqbalka dhowr ciyaartoy oo kooxdaasi ah. وهاجا خيارتنا داون ساي وركيga kale saaka ugu weyn kubadda cagta waxaa ka mid ah xidiga Alvaro Morata ayaa shaaca ka qaaday in dhowr koox dalab markaasi uu ka haysto markaana mustaqbalkiisa uu go'aamin doono maalmaha soo socda. Atletico Madrid iyo Arsenal ayaa la tilmaamaya inay ka mid yihiin kooxaha sida weyn u doonaya inay helaan, waxaana sidoo kale haatan soo gashay naadiga Barcelona. Manchester City daafacooda lagu magacaabo Nathan Ake waxaa lagu wargeliyey in marka uu bixi karo laacibkani dhaawacyo ayuu u nuglaa kaliya 10 kulan ayaa la tilmaamaya inuu ka ciyaaray horyaalka Ingiriiska ee soo afjarmay. Pep Guardiola laacibkaasi kuma qanacsan, waxaana haatan la yiri waad bixi kartaa. xidiga Cavani ka tagay Manchester United isna dalbi waxa uu ka haystaa Real Sociedad, Atletico Villarreal iyo naadiga kale ee Sevilla. laacibkaasi aad ayaa looga doonaya horyaalka wadanka Spain. Steven Gerrard isna wada xadid ayuu kula jiraa Aston Villa ayuu hogaaminaya, waxa uuna doonayaa in Luis Suarez uu keeno qalacada ay ka ciyaarta Aston Villa qandaraas gaaraya 2024 ayaana loo bandhigay. naadiga Liverpool badalka Sadio Mane waxay u arkaan xidig u ciyaara AC Milan oo lagu magacaabo Rafael Leo. xidigaas ay doonayaan in ay keenaan xidigoo dhalinta ku fiican waa, laakiin waxaa la tilmaamaya in lacagta AC Milan ay sheegan doonto aanu ahaan doonin mid markaasi yar. 11 gool ayuu dhaliyay, 10 caawinna waa uu sameeyey xil ciyaareedkan horyaalka wadanka Talyaaniga. Manchester United waxaa la isku raacayaa inay ku dhow yihiin heshiiska xidiga Timber ee Ajax 43 milyan ayaa markaasi kaga baxaysa. warbaahinta dalkaasi Holland ayaa tilmaamaysa in macalinka kooxda United uu kaalin weyn ku leeyahay soo xirigelinta wiilkaasi. daawadayaal wararkii ugu weynaa saaka waa naga intaa, dabcan waa isoo tarayaan wararka suuqa waa uu furan yahay, marba ciyaaryahan ayaa koox lala xiriirinaya, marka sidaa darteed waxaad la soconaysaa in war aynu saaka sheegnay in duhurkii koox kale aynu la xiriirino. waa iska xaalka suuqa xanta ayaanu ku gujirnaa oo marba
xoodani warkii loo soo helo ayaan soo qaadanayna insha allah fuad guray iyo saacadaha soo socda ayaa inoo balana si share gareeya fadlan dhiirigeliya waa saaxiibkan cismaan fantastic sidoo kale haddii aad xiisanayso wararka iyagoo qoraala booqo shabakada ciyaaraha qorta ee kooxda.com soo gudbinta barnaamijkan waxaa idiin fududeeyey shabakadda ciyaaraha ee kooxda.com ma doonaysaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha faraqiimo xiiso badan dib u eegid iyo weliba guud ahaan natiijooyinka kulamada kala duwan isla daqiiqadda ay soo gabagabowdo booqo oo u degdeg shabakadda ciyaaraha ee kooxda.com hoyga ciyaaraha dalka iyo weliba kuwa caalamka ha moogaanin koox